dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee sheekadii filanwaa. meeshu waa kulliyadda Lafoole dhexdeeda. waa xilli cawaysa. alaaba kulliyadda Lafoole iyo kulliyadda beeruhu dheega ayay isku hayaan waa laba kulliyadooda isu dhowdhow. haddaba ardaydu xilliyada ay firaaqada yihiin waxay isugu tagaan kulliyadda Lafoole oo iyadu markaa xogaa jawi ahaan ka yara degan kulliyadda beeraha aadna moodid inay ka baaxad ahaan ka ballaaran tahay. farxaan waa arday haddaba isagu dhigta jaamacadda beeraha. dhinaca fankana aad ayuu ugu dheer yahay. inta badan marka ay ardaydu cawayska isugu timaado isaga ayaa gitaarka u tuma. meesha ardayda joogta ee markaa wiilal iyo gabdhaba leh ee markaa iyagoo heesaha qaadaya marmarna qudhadiisu heesaha wuu gashadaayo wuu heesaa isku soo xooriyo. farxaan waa arday aad loo wada jecel yahay. waa fiidnimo isniina. arday ka timid kulliyadda beeraha iyo arday iyagu hore u sii joogay kulliyadda Lafoole oo wiilal iyo gabdhaba leh. dhinaca kuwa beeraha ka yimid laftigooda wiilal iyo gabdha ay isugu jiraan ayaa cawayska halkaa wada joogay. farxaan iyo saaxiibkii ayaa gitaarka boodhka ka tumayay. waana kuwan iyaga oo markaa ardaydu heesihii ay qaadqaadayaan. farxaan aniga heesta waxay garaaca khatardaano ma adu horta khatarada masiidaba ka helaa moogta khataraha waa xilli cawaysina dayaxuna waa 14 oo xilliga la yiraahdo waa geelqaad. kullay wixii dhulka kaaga dhaca si haleela ayaad ku helaysaa. ardayda waxaad moodaa farxadoodu in ay aad u sarreyso. maray sacbilayaan maray heesayaan markaa ay sawaxan iyo buuq kale isku darayaan adaaba yaabaya codadka ardayda markaa ka baxaya. farxaan saaxiib aniga waxa ay garaacay heestii oo wax dhintoo ka samirtaa saan rabaa taas aan ku doonay.
waxa weeyaan ardayda habeenka xilliga cawayska iskugu yimaadeen waxay ahayd goorfiida saacaddana waxay ahayd 7 fiidnimo waa halka qaarna ay u yaqaanaan halka saace heesaha midba midka daran ayay qaadayeen talo gabdhaha maxaa ku dhacay waxay yidhahan waa cawaysa waa nala arkayaaye war horta xagga ragga ha loo badiyo annagu sidaa ayaanu codsanaynaa ayay ardaydu yidhaahdeen mar kale ayay buuq kiciyeenoo waxaad moodaa in farxaan laftigiisa ay farta ku madayaanoo ay leeyihin war farxaan adigu markan maad hees ka tuurtid واي بلا بلا hannaanka iyo quruxdan hiboy kugu jecelaado ku hooda sheegsheeg dumar haygu noqonine miyay dartaayo habeen socodku waasho waxaan heedhi taaban kawada sarrayse habboonay naftaydan cishqi baad ku noqoto cadaa ii hilaaye habboonay naftaydan cishqi baad ku noqoto cadaa ii hilaaye haddaad diido hadalkayga habeen wacan nasiibkayga halkaygaan ku sugaya haddaad diido hadalkayga habeen wacan nasiibkayga halkaygaan ku sugaya ardayda labada kulliyadood waa la foole iyo beerahe xilliyada haddaba firaaqada habeenkii ay leeyihiin waxaa cadow ah inay isugu yimaadaan kulliyadda la foole halkaasoo aad moodid inay kulliyaddaa ka ballaaran tahay kana sawaxan iyo buuqu yar tahay sida aad maqlayseenba ardaydaasi cawayskii kolka ay isu yimaadaan waa habeenka ay isu yimaadaane si wacan ayay u tuntaan iyagoo suugaanta heesaha sheekooyinka kolba dhinac ka roga oo eega gabdhaha iyagu cawayskaa yimaada qaar ka mid a ayaa waxaad moodaa inay si gaara faq isula baxeen oo talow maxay isweydiinayaan ayay ka warran bal cawayska caawa la dhigay cawayska beelo soo ma fiicna yaa ugu cod fiicna marka yaa ugu cod fiicna marka aniga wuxuu ilaa maxamed ana laftirkayga waxaa la fiicnaa axmed idinka dhanba waxaan ka haysta farxaana aad iyo aad ugu haysta codka iyo waxa dhanba baashe waa inaan joog iyo jamaal intuu eebba siiyey dabci wacanna ugu laray wuxuu aad u jeclaa ciyaarta kubadda cagta oo uu galab walba u boqooli jiray galab walba sida caadada ah waxa baashe uu sii dhex mari jiray xaafaday deggan yihiin xaasaska ciidanka bilayska ileen waaba marinkiisa marka uu garoonka u sii socdo iyo marka uu ka imanayaba waa galabnimo khamiisa wuxuu baashi u sii socday garoonkii kubadda cagta sida caadada u ahayd cirka
waxay isku gadaamay daruura cukan jawiguna cadar ayuu ahaa durba tiix dhibco rooba ayaa bilowday daqiiqadba daqiiqadda ka dambaysa dhibcihii roobku way sii badanayeen mar quraase dhibicdii cir iyo dhul ay isqabsatay baashi awal saanta wuu boobsiinayee mar qura ayuu orod cagaha wax ka dayey waxaanu hoos tegay geed weyn oo muugana ahaa oo dhibicdu aanay si sahla uga soo dusayn waa xaafaddii bilayska dhexdeeda 10 tillaabo oo hortiisa qiyaastii aqal u jiray daaqad ka furnayd ayuu bidhaan ruux dumara ka halacsaday ishuu la sii raacay marna daaqadda kama jeesan baashi oo si toosa ayuu indhaha ugu hayay gabadh tima dheer midabkeedu dhin yahay bushimahana aad moodid in khad madow la mariyey ayaa daaqadda taagnayd oo shanlaysanaysay welibana hees ku luqaynaysay waa kabaaye kistii adkeentidee kordhintooda kiisha noqdeen roobkii ayaa qayooday baashase meeshii kama tegin ilaan gabadhii ayaa beer qaadaye ciyaartii u socdayna waabuu ilaabay oo muuqaalka gabadhan ayuu la amakaagay miskiin mar qudha ayuu inta naqas ka soo booday isagoo isla hadlaya wuxuu yidhi oo tanna xaafaddan miyay ku noolayd alla qurux badana amaan 4 tallaabo xaggeeda u sii qaadaa ilaan tintaa dhabankeeda iyo wejigaba iga aadan si aan u arkay waa inaan ku dhowaadaa tanna ma moodayn inay meeshan oo kale iiga soo bixi doonto jawiga iyo daaqadda iyo gabadha taagan waxaadba moodaa 3 xagal la isku jaangooyey inay tahay baashi miskiin gabadha bilicdeeda tinta dheer afka duqulka la mooday madow midabka dhinka ayaa beer qaaday waa kaa keligii isla hadlaya sidii isagoo isla hadlaya ayuu xaggiisa dambe mar qura wuxuu ka dareemay waa waryaa mama habeen baa laisku ogaayeen waa xalxadeen mamaalin baa xabasa xariifow horta saaxiib ha igu qaldamin anigu tuug maahay sida iga muuqatana anigu nin ciyaartooy ah ayaan ahay meeshana roob ayaan ka soo galay laakiin tuug maahay saaxiib see kaa noqotay aniga kale waxaan ku sheegayaa guri islaam maalinta markay dhibicdu bilaabato roobka saad dirshada hadba dhinac ugu soo socotay dirshada adoo hoosta ka galaan kuu jeedi muxuu ka qabanaysaa laakiin wadanka wax kama rabo inaa xalo waa ujeeda alaab rabo inaa xaday oo la ordee dadka cid alaabtoo rabo inaa qaatay ma dah rabo inaa xariif uma ekan ninkan laakiin hal midaan kuu sheegay saaxiib doqon maxaa qofka markuu xadayo ama uu wax dhacay qaab gaar uu leeyahay anigu ma bidhaan tuugnima ay adiga aragtay abo waxaa tuug waxaa isdabaalinaya tahay din cadayso warkaada laakiin daaqadii joogo warana xaafadda ana ku nool saaxiib dhegeyso ninkan nin tuug ma eko filin karo rabiicsan yaa ka maqan saaxiib maya aniga waxa igama maqnaa maya xogaa haraada ay qabtay gabadha daaqada joogta reeran dhaho galaas biyo ay dhib maya galaas kartay la ordi ka bacso maaha galaas waxa lala cararo horta maaha war waa lala cararo jeebkayga lacagta inta ku jirta fiiro lacagtee inta aan haysto بنوني وسعد دي بنوني كويه وتامي دي كويه بنوني سواني هاي وقلت حريف ما كان غير في وده اسمه على كل حال حريفه انا حافظ انك لو ريتش هذا ما وضي عامر وانين قناعسده مال الدنيا إلهي وديبي وانين شن oo muslina wuxuu dhalay 5 caruur waxay kala yihiin 2 gabdhood iyo 3 wiil waxa la kala yiraahdaa Leila Naciimo Ubayd Qadmaan iyo Salim xaajigu ganacsi ayuu dibadda u qabtaa waa Caamire imika marka wuxuu doonayaa in uu tago Dubai si badeecad uu uga soo rarto Awi, Leila. Abba. Idagayso. Haye. Ayantan warkaaga waa maqlaaniga. Kawaanka malaayad wareegtaa kawaanka malaaya laga sheegay. Maxaa ka samaysaa? Abba kala kawaanka malaay la doonaan wax kale ma waadi. Maya. Aniga ma baa ii sheegaysaa wariya. Maya.
warkaaga waa maqli kawaanka malaay mar kale haddii lagaa soo cawaado iska jir abaa anaga kamaanka malaayga wax kale muu doona malaaya u doonaa malaayga waa jecelna waa ogtaa qaadi waa ku cunaa quraacdii cashadii kulli gurigeena malaay lee laga jecelyaa malaay lee u doonaa aaba malaay kan mininka yaala maho kan lee dhameebo mininka malaay kan buuxa ma ohodhiya anaa maa been ii sheegaysa haddana abaa malaay lee u doonaani waa kuu sheegay mar kasta ma ku celcelin kari malaay lee u doonaani hadda warkeyga maqal malaayga mininka yaala usoon dhammaanin malaay kale ma la keeni karo aawi tii kalena waay kana aabe naciima waay kan warkeyga maqal haye adiga ayaan tan xaalkaaga ma kasooyi naftarkaaga maxaa dhacay hanuunba kuukula shaal iyo barfuun iyo waxa lidku jirtaa dhinacan jaamacadda lafoolana waa lagaa sheego hayaa aaba aniga la foolo ma aado been waay waxaas ani maa idhahay udhiyaa ma aado yaa kugu dhahay warkaas aniga meeq maraan ku arki naftirgeyga meeq maraan ku arki aaba aniga guriga maba ka baxaba maraan jiifo iyo maraan wax akrisanayo kaliya weeye haye ha waxaa yeelaysaa aniga safaraan ahay haye warkan oo hadda la shiisheegoyo mar kale yaa maqlin haye haddii awl aan samayn jiro waay mar kale ma aha عبيد وايكن ها وايكن وريا عبيد واكو مقلوبة هذيك ايان تن سيبا حالكاga warbixin isiibo xaaladii bariga dhaxay way aaba haye caadi bit adiga wax waaye ay waa laga soo cawaadi ay soo cawaadi jiiraanka dhan waa ka soo cawaadeen rabshoola tahay nin rabshi badana tahay may makasino aniga sharafteyda iyo akhyaarnimadeyda ku dheeloysaa si u dheelo been waa abaxas waxaan ku leeyahay haye istaji واستجيب anaga dad muslim aan nahay ma rabno cabaad in wax la naga sheega ma rabno ma ay way ku kuuraan lana dhiba u geysana markaas iskaga sabar waa u sabraysaa ma kastaad waluu ku kuuraan ma la sabraa markaas ha awayay dhegayso anigi safaraan ahay waa garta waxaan wada hadlaynaa markii safarka aan kasoo noqdo haye dubayaan rabaa inaan aado aw dubaya wartaabina ha waan garta hadda waxaan ku leeyahay haye jiiraanka yaas wax kaa sheegin abas yaro waxaas kaa sheegin xuseen maroodi waxaas kaa sheegin haye iridi kale dhinacaas naga xigtay ya yay wax kaa soo sheegin iridas nuur wala fin lahaay iga dhibi yay wax kaa sheegin dadkaan oo dhan ka xesho ixtiraam adeeradaada waaye war dadka xaafadda dhawaay dhibeen koodhe waa iska dhafataan aadaan kuu sheega hadda war waa i dhibeen ma aha edeb lahaw adiga okay ab madaxa hoos gey madaxa hoos waa geeyay kaalma okay abaa haye dubay markii tagtid haye ana waxaan rabaa hadiyad inaa ii keentid hadiyad ha haye maxaan kuu keenaa abaa ani dahabaan jeclaa ma ogtahay aaba aniga taladaada waan yeelay waxaan kaa rabaa haddaa baxdid inaa ana wax ku dirsadaan rabo haye maxaa rabtaa adne aaba dahab iyo dharaan rabaa cubeed haye adne ana waxaan kuu dirsanayaa gaari maxaa la macnaha baabuur aba caamir anigoo ah waxaasoo dhan 5 daqiiqo aan ku keenaa anoon abudabay aadin maxaa kaa rabaa mataqaanaa haye 12 gaari oo ah ku socotid midba maalin saacadba maalin warkaaga waa yeelaya markaas qof waliba wixii raba anaa u keenaayo diriskana waa ka leexanaya laakiin ballanqaad qof waliba amarkeyga waa inuu qaataa ino afraatan saac gurigaas ka joogayna aaba annaga taladaada waa yeelaynaa waana kaa dambaynaynaa laakiin waxaa noo samaysaa wixii aan kuu dirsana noo keen ma idinku ogay waan idinkaay ballan waaye waa idin keenaa wax alle wixii aad rabtiin laakiin diriska diina dadaya dib waan u geysayna umaleeyaani saasaan ku dhownaa aabe laakiin aabe dubay waa inuu kusoo daaho umaleynaani dhegayso ha labada kale maqanna ha usii sheega waan garta warka hala gaarsiiyo adaa weyn aabe leyla aabe labadaas kalena u sheeg haye warkeyga gaarsii waa u sheegaane naano haye ma kasino ha ayagana mar hore ila balameen ayagana waxay rabaan waa u keenaa iyaga waxaan kuu dirsadaa laakiin abaa mar hore abaa anaka waxaan rabnaa waxa dhan warka waa qaadanaynaa anakana wixii aan kuu dirsanaa ani dahab badan aan kuu dirsaday ii keen waa kuu keenaa naciima iyadana waxay kuu dirsato u keen waa u keenaa walaalkee wuxuu kuu dirsado u keen kulli walaalaheenana abaaboogan baxooy adile waaye ha ba waxaan kaloo kuu sheegaa haye qadmaan saalimna waa madax adeegiin warkeena yeeli maayan anaga maya walaashooda kabeen hadday la hadasho ha warkeeda waa yeelayaan laakiin adiga halaadni aad rabshoola waa dilayaan kuwaas aniga adiga waa ku dilayaa kaa ka dhawaana
هي ما فهمي ساوري واكسي حتى وابحا اني هي اوي وابحا يا هي سلام ان شاء الله baashiha bilicdiisa baad baa beer qaaday waxaase uga darnaa wax walba dabcasar iyo dibindaabiyo oo ah laba nin oo dhibaato ku shaqaysta xaafaddana caanka ah magaaladoo dhanna aad looga yaqaano kolkii uu gacanta u galay maxayse kuugu taal dirqi iyo to'alla ayuu kaga soo baxsaday isagoo neeftuuraya qalbaddana ku haya sabaad waxa uu yidhi baashi iga tag laba nin oo yaab leh baayaan kuwane wejigoodaaba argagax iyo cabsi leh haddayba kuwaasi dhaafeen anaaba nasiib leh laakiin waxaan la iloobi karin qoftii aan arkay walee aniga iyo geedkaas iyo dariishadaas u malin maayo inaan kala fogaan doono sidayba laabteyda u ruuxda gabadho anoon gabadha helin inaan nasan doono u malayn maayo qalbigu xaggeeda usii jiidmayaa laakiin kuwii baan ka baqaya inay mar kale meeshii ii istaagaan hadda waan isaga tagayaa laakiin waa inaan xaggeeda u bato وبكينا ودنكا أكبري لو يجدا ليكون لا يهلو دورار عليو أروين كتوني عطينا كلا يهلو هذا الفيلة كوية ودنتي كوايو هذا الجايالي وهكذا dhegaystayaal qaybtii koowaad ee sheekadii filanwaa intaa ayaynu ku soo afmeeraynaa tan iyo kulantideena dambana waxaan idin leeyahay nabadgelyo